كرسينا فريسة الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. مسؤولين تقاك يا أهل الجوتة وضياشة لمن بين هوينا قال لي يا رضي الصحافة وحكو صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتب عادي كنت أقول فرحسن عن الشركة مطلبا اللي يسويني عادي كذا قاسمي أي شوان مشرحين تصدق إيوه قولي ده حسبك سيدنا المامي نقل هذا بدن وكورم قاعدة عادي تحديد كسوسوا قاسمتي iyo ka soo shaqaysay ugu amaanaya ugu mahadcelinaya intaa kadib mawduuca xisbiga tiimka iyaga ama musharaxiinta halkan joogta saaxiibada wixii ay ka qaateen iyo aragtida ay ka bixiyeen baan kala midaysan. waxaan u arkaa xisbigu inuu yahay xisbi la wada leeyahay dalkana soo hogaamiyey guula ku gaari kara wadajir iyo midnimo taladana ku qaban kara dimuqraadiyad iyo tartan ee aan mar raba suurtagal ahayn in jujuub iyo afduub ay ku suurta gasho in hogaanka lagu qabto ama uu tayada macna ku yeesho. intaa kadib anigoo aragtida kala siman oo kala midaysan musharaxiinta sidaan sheegay saaxiibada ee halka ka hadlay waxaan jecelahay inaan tilmaamo halka kan midkii laga tilmaamay ahaa inta yadii xukuumadda ka tagtay iyo inta kale ee sharaxan iyo inta halkan joogtay nala mawqifkaaba aragtida yada iyo maxaan nuga tagnay waayo maxaan nuga tagnay waxaan leeyahay xilka annaga ka tagnay annagoo xora waan cidinana khasbaynin baanu ka tagnay. waxaan xilka ka dooran qadiyadda iyo rabitaanka iyo damiirka iyagu wuxuu doonayo oo ah waxa loo siman yahay oo cadaalada oo loo tartamo inuu dhacee aanay jujuub ku iman oo tanaan ka hadlayna. waxaa runtii aanu xilka uga tagnay inaanu qiimayno xisbinimada. waxaan anigu uga tegay saaxiibadeeda kale intaanu iswaraysan uga tagnay inaanu xisbinimada qiimayno aanaan qabyaalada iyo qoloqolada iyo reerhebalutaagada qiimayn. waxaa qiimanala leh qarannimada ee qoloqoladu qiimanalamaha. waxaa qiimanala leh xisbinimada ee waxa weeye kooxdu qiimanalamaha. marka waxaan leenahay waa xisbiga aragtidaan uga tagnay waa taa. waxaa laga yaabaa halkan joogay ama intii aan joogay xukuumadda 6 sanadood ku dhowaa ee madaxweynaha la shaqaynayay ee lagu xaman jiray bosishinka ugu dhowya gacanta midigna ee laga yaabo in lagu xaman jiray in qol ahaan la xijiyo marka Soomaalidu qabyaalada dayn weydo in la xijiyo. waxaan qaatay go'aanka dariiqa uu ku socdo mustaqbalkii xisbiga iyo dalka oo ah inuu qaybsamo xisbigii inay dimuqraadiyad iyo doorasho xor oo xalaal aanay soconin inaan diido oo ilaahdo suurtagal maaha inaan aragtidayda ka jawaabo xaasha hunguri baanaan uga tegin يعني واحدة ولا تقول لي استوى أنا متري حاشا مدحوينها إلى أمام المسلمين أنا متري مدحوينها إلى وصور شقينا فموت سيقولي هاي تلمام ما يو لكن يا بين ولي هاي أسرار ولي إن حلقة في كسوة وين إلهه لكن يا بين الحكيم يو لكن يا بين واحد شيء مثل ولي كسوة ولي صاحبتي waxaan kula qabtamay madaxweynaha waa madaxweynaha inaan la soo shaqeynay
aniguna waxaan ahay mar haddaan ka maqanaya haddaan la joogaba waa madaxweynaha isku taariikhnahay waa nin badan soo shaqaynayay ma ogolin wax la yeelo carabka lagu xajiyo ee saaxiibada waxaan leeyahay yaa carabku idinkaga baxsan carab yaa madaxweynaha idinkaga baxsan madaxweynaha iyo xukuumadda saaxiibadeeda jooga isma hayno laakiinse waxa aan ku kala duwannahay waa aragtida siyaasiga aanu ku kala duwannahay ayaan xilkayaga ugu tagnay iminkana aanu ka hadlayna wadaynaano aanan joojinin aanu wadi doonay aanan joojinin waxaa laga yaabaa suuqa waxaan ka maqlay qaarkood yidhaahdaa madaxweyne baa cidda uu kaga tegay waana madaxweynuhu dowladna u haystaa ragna uula joogaa raggana ahayn madaxweynehan ahayn shaqaalaanu ahayn waan la shaqaynayay inaan ka tagaana xilkana waan imiyo maalin baani waxaana qoray inaan maalin ka tago maalintana go-aankeeda iyo gaaristeeda inaan maalintaa ka taga anigay ku xidhnay ama waxay ku xidhnay madaxweynuhu inaga maarmo ama anigu inaan u arko inaan maalintaa ka tago annagaa ka tagnay madaxweyne ayaa ragga la shaqaynayna caayina haddaa isleeyihin waa ku tara cidduu kaga tegin marka haddaa macnaheedu waxa weeya taa raggii aanu ka tagnay maciddaa madaxweyne iyo dowladda maciddaa xaasha waxaan markaan ka tegay inay iminkan aaminsana geesiyaadka bedeli kale waa baday xukuumadduna waa xukuumad jirto oo gaamurtay oo 5 sannadood aan soo dhisaynayo ayaamo iyo sanado sanad iyo gooboo hadheenno mushkilad maaha dhibaata ma haysato waalidinku kuwa isla waxtaro waalidinku waa caayib inagu caayib mayno afkayaga laga maqli maayo kasha koorinta waxaan tilmaamay waxaa laga yaaba dadka inay iskaga qaldan yihiin in badan inay tiraahdo madaxweynaha muxuu uga tegay madaxweynaha waa ula shaqaynaya mucaankan iyo qaarkoodna waxa way ku yaahdeen maad madaxa iskaga ruxdido oo ushaada iska wadad waar anigu munaafiq ma yihin oo qaayin ma yihin oo beenaale ma yihin ee waxaan aaminsan in madaxweynaha marka la joogana waa u sheegi jiray haddaan ka tegay waxaan aaminsanayn baan kaga tegaya u sheegay waxa cad oo aan tusaalaynay qariib maaha haddaa adig iyo madaxweynahaagu isku siyaasad noqon weydaan oo isku kaan noqon weydaan oo aragtida ka midoobi weydaan waa inaad iskaga tagto ama waa inu isagu kaa kaxeeyo waxa kaa dhexeeya haddii madaxweynaha dowladda markaynu ku jiray iyo dhismaheeda iyo qarannimada iyo xisbiga iyo doorashooyinka intii aanu ku soo jiray aanu aragtida ka midaysnayn balse maanta uu ka haray doorashadii oo aanan ka midaysnayn mustaqbalka yaa hogaaminaya oo aragti midaysan ka lahayn oo dhaarashan midaysan ka lahayn mustaqbalka ciddaas ma hogaamiso aanan kuna khasbanan inaynu isu aragti ka noqono ee qof waliba aragtidiisu leeyahy ciddii u arkay inuu hogaamo arko mustaqbalka ayuu dooranaya balse shaki kuma jiro hadduu madaxweynaha iyagu doonayo inuu tartamo inaanu 15 bad huuda ku qaadi lahayn oo u shaqayn lahayn oo ku tabci lahayn inaynu gaadhsiino haddii saanu aragti ku kala noqonay qariib maaha waa wax dunida oo dhan ka dhaca madaxweyne silaanyay soo marto inuu hadday madaxweynihiisi maalintii kala duwanaadeen inuu iskaga tago oo maxaa u dambeeyey laayk saama madaxweynuhu halka wuxuu ka awoodin wuxuu ahaan jiray maxamed cabdulaahi xigaab wuxuu kaga tegay maalintuu ka tegay xilkii ugu dambeeyey inay madaxweynaha isku afgaran waayeen meeyarka burco xilkaa ka qaadi iyo waan ka qaadaya maalintii uu ka qaadayna madaxweynuhu intuu qoraal u keenay yidhi waan kaa tegey maadaama wixii aan aaminsanaa in wax la qabto kuwii aan istaa waxbay qabanayaan aad ka qaaday waan kaa tego xilkii waan ka tanaasulo waxay ku kala baydheen aragtida horumar ee dalkay ku kala baydheen madaxweyne siinaan iyo axmed cabdixaan casbaan kadibna uu ka tegay ceebna muu dhigine siyaasigu waa saaxada jooga oo maalinba meesha ay ka soo eegayso ragga ah waxa macruufa taariikhda quruxda badana uu siinaayo leeyahay oo aanu kaga dayanayno oo shalay ahayd in maxamed si aadbare ka tegey oo uu kaga tegay maxay walaalkii cascaso oo jooga kismaayo ayaa madaxweyne siinaayo si aniga isaga iga sheekeeyey maxamed aladeli waa marar badan aan ka maqlay isagoo saaxada ka sheegaya in walaalkii siyaad bare walaalkii cascaso kismaayo ka bedelay oo uu bedelay baydhabo iyo meel kale oo uu kadibna la yidhi shaqo kale uu ka hayaaye ku celi halkii
ويعني أن وزارة اللي كشغيني وأنا بدل لكم علم مايو إلى حلقي مريان هذين والبيوم وموقف كيسة وعرفتي السياسة الوقت يعني صحتها أمام معمول يندنا الوقت يعني صحتها أنا وعن كيفك ما تقولين يقولون عرفتي سمعت يلومني مستقبل واحد وحوي حجينا يا واحد تنوكلنا معها عادنا كل شيء منه وأنا صور شغيني مدحوينا داعد ضلكن وضلكن يجعل مهرم مريوها أنيقنا هل كان إسلام أنا مايو رأيك يروحن ضبطي يروحنها يدينان مري عن كل السريع إلى يتريح وضرار كيالو كل اللغة كيالو تاريخ ده شيء يدوفر أنت كيف عن شعر المصور بيو حسبي كلمية عايزين أن نعرف ترى نسوق الجريمة وعلى حسبي كلمية أي وضعين أي وضعين أي وضع شعرين وعلى يقول دخلها لجدعي وأنت عطوطي يقول دخلها لجدعي ما بقى لجدعي إن أنا كوا عرب يقول دخل وربنا فاهم إنه يلا وهو يعي وأفدوين وفاهم لكن سوى علامة لبعض الشيطان بصومالي واحد يتكبر وكيل كبر وهو يكبر وعينه يعلم من بالويني مثل كونك كجوابي ركبوا باليلو وحي سودا وحال نسيبي قال قال وقور هوانا وقور وعلى كمال وفمن تكبر وحي يقانا ninka sagaal waa sideedna dawladkii sagaalna u xidhay weydiiya xisbiga kulmiye waxaan u aragnaa midnimada iyo wadajirka iyo isku duubnida iyo inuu tartan xalaal galo oo kii la doortaana la wada dhiso in xalkiisa iyo horumarkiisa uu ku jiro haddii se taa la garan waayo ninka xukuumaddii bal ka tegey xukuumaddiisii uu xisbiga u ahaaba ka tegey ku-xigeenadiisii kuwii ku xigay ay ka tageen baale halka farfadhiya guddigii fulintu intii badan ka maqan tahay golihii dhexbaa halkaa fadhiya badankiisii yahay musharaxiintii la tartamaysay kuwa halkan fadhiya yahay weli leh waxba inagama qasleen in inoo wada durbaanka inoo garaaca kaasaa iga dhaqaani weydiin guusheeda halka lagu gaaranaanaga iyadana balay weegiyo taariikhda waana ta lagu yaqaano guuldarrada mar hadduu dadka qofku la yaryaraado qiimayn waayo oo guddoomiyaashii baarlamaanka ku jira xisbiga fadhiya labadii ku-xigeenee baarlamaanka u joogay oo wasiiradu waa sidaa la sheegayo waxantaa wasiiraada xukuumaddii ka tegey oo baarlamaankiiba in badan majoritigii ka soo jeeda halka qaarna fadhiyeen qaaro suuqa jooga oo qaarka dhinaado xisbigaa fulintii ka soo jeeda ninkaasaa yaqaani weydiiya haddii loo garan waayo saacad tartan hadda ninkaan sheegaya sinaayo maxaasha waa nin kale ii cimaamadoy doonta oo intaas la maqayna waxaan ku soo ururinaya halka ka sheegi maayo oo oran maayo sida ragga qaar ku celcelinayay waxaweye qaradumis ma nihin oo akano waakan waana anagu qaradumis ma nihin qaranka anagaa dhisnay inta xukuumaddu badatayna waxaan nahay dadkii hormuudku ah ee ka shaqaynayay maanta waxaanu ka sii shaqayn doonaa sida xisbiguna wax u noqdo haddii dee loo ogolaado iyo sidii xukuumadda lagu jiirjiri lahayd iyo sidii dalka loo horumari lahaa ayaanu ka shaqayn doonaa hadday halgan ahaydna waanu halganin haddii qodobka joogku ka warwareegayaan waanu halgan maxabadaan ubi hadday horumar ahaydna waan ka soo shaqayn hadday maanta tahayna diyaar baanuna waanu ka sii shaqayn waxaanu leedahay waa waxba ma tarto afar midmadooba meel la soo fadhiisiyaayo dowladdii igu horreysay baynu ku naqaan oo baranolyaada kii foolkaraa maantana waa ku jira inta meel la soo tarto un baanu taagaysana afar meel la soo fadhiisiyo dhaado hadal wax ka sheega waanu waxba ma tarto waa siyaasad iyo qorshe iyo hogaamin iyo barnaamij iyo balaan wax lagu qabtabaa wax tara waa dadkaa wax tara kuwa odhanaya legasigii baanu ilaalinayna bal xisbigu waa taqaaniyo waa xisbigu muxuu xisbi ku yahay legasina maxaa lagu abuura xisbigu muxuu xisbi ku yahay
structure iyo maamul iyo sharci iyo dad hadduu aada xisbiga waa xibur cawar waa magac waraaq lagu qoro haddii baarlamaankii kaa dareero oo xukuumaddii kaa dareerto oo baanka yaado maamulkii iyo hogaankii kaa dareero oo golihii dhex kaa dareero oo fulintii kaa dareero waa ta lagasigii baan weli wadaa lagasigii xisbigaan dhisaya oo weli waan wadaa waxaan leeyahay lagasigii xisbiguna sidaa ma aha lagasigii qarankuna sidaa ma aha waxaan leeyahay waa xisbigana waa xisbigii yuu kala teginin oo yuu kala dhaqaaqinin oo taariikhdeedana ha qaadanin dalkan iyaanu gududaro ku mudanin ka daaya sidaas waa laga daayo hala soo fadhiisto wadahadalka aan yani wadahadal loo sameeya wadahadal afduubi suurtagal maaha wadahadal loo sameeya laga wada hadlo hala yeesho ha laga midoobo oo ha laga wada socdo oo cabatinka anagu kuwan dhisaya waa kuwa cabanaya markada waa idiin soo diro waxan waa fadhiisto wadahadal ogolaado waa kuwa wadahadalkii waxbana laga dhegaysan waa dagaal yaa laga furaysan aan laga dhegaysto aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaanan ku kalsoonay qarankuna uu jiri doono inana waynu guulaysanayna dowladdana hayana aynu iska taagayn oo waa ilaalinayn ninkii xubinayirkii waa mahadsantihiin